قاعدون ما يوان أورا يا نفطيدا وأنا دبنا يدق حلا خصاص الله خصاص الدولة ninka uu soo halgamay ee uu soo dhintay ee maanta afar looda bolol laha laga qaadayo hadana ee berrina nin madaxa la siinayo cadaalad darrada ka taagan go'aanka Soomaaliland hal arko waa arkaysaa go'aanku lagu hortaagay ciidanka xoojinta la soo gudbigayo wax weeye Allahu akbar Allahu akbar dhacdo dhul oo maanta sababtay inay iska hor yimaadaan dad danyar ah oo degan xaafadda shacabka qaybta loo yaqaano xerada guutada iyo ciidamada booliiska oo wehelinayaan ciidamada RRU-da ay degan magaalada Berbera ayaa sababtay in rabshad xooggan ay halkaasi ay ka dhacdo iyadoo si weyn loo maqlayay rasaas xooggan oo halkaasi ka dhacay dhacdadan ayaa haddana waxaa ka hadlay taliyaha qaybta booliiska Aadan Cabdi Cawaale halka saaka waxa ka jirtay hawlgeli ka jirtay maxaa ku raadayay fulin dawladda hoose dhulka kan oo sharci darro uu ku dhisanayay nin Faysal la yiraahdo ayaa ciidanka booliisku ay ka hawlgaleen oo fulinahayd oo dawladda hoose ay hawlgalka ay wadatay ka bacdi markii ciidanka yimi qori buu la soo baxay rasaas buu ku riday dadkii xaafadda ku jiray oo dhamina dhagaxay dhulkay taabteen askarta waxa soo gaaray dhaawac ilaa 10 askari oo dhagax ayaa soo gaadhay dadka shacabka waxaan qabanay 10 qof ayaan qabanay oo xabsiga ku jira isagina nasiib darro uu naga baxsaday laakiin gacantaan ku soo dhigi doona hadii ilaahay ka dhigo hawshina waa taasoo way soconaysaa meesha waanu dhameystirnaa markaan dhameystirno hadii ilaahay ka dhigo waxaan ka hawlgeli doonaa ninka ciidanka booliiska rasaasay hadii ilaahay ka dhigo meesha ma bilaa sharciga shay ku degan waa bilaa sharci ku degan bilkoontigu doonayay inuu ku sameeyana oo doonayay inuu ku dhisana waa kaas yaale raqdiisa si taalaay sharci darru ku deganaa sharci darra fulita lagu fulinayay oo sharci loogu fulinayay dad meeshuna waa shacabki weeyaan waa central government weeyaan waa dhulkii dawladda weeyaan xiradii guutada waa tan ee ciidanka militarigu sidaa darteed sharci darru ku deganaa bulkeetigii uu doonayay inuu ku dhistana raqdiisa wata taalaay amarka dadku hawlgalka ku sameeyaan gudoomiyaha gobolka ayaa bixiyaa oo barasaabka gobolka taas waxa bixiyay gudoomiyaha deegaanka ayaa lahaa oo fuliyay magaranaysaa dhulkan ku shaqale sidaa darteed sidaas baan hawlgalkan ku galay aniga oo shacaba muwaadin u dhashay dalka ayaa maanta u soo halgamay dalka oo bartaan ku dhashay taagan ayaa waxaan kala ahay meeshan caruurtaydii ku korsan lahaa dhagax kama dhisayo birana kama dhisayo ee waxaan ka dhisayaa waxa weeyaan waa waab jaajuurkan ku shaqaysanayay dawladdu waa tii ii shaqaynaysay waa taan u shaqaynayay waa taan soo gudbiyay ma waxay doonayaan qatanaashayda iyo dhimashadayda Soomaaliya waxa weeyaan kaliya inta halka madaxweyne gaajo aniga adiga wado ciidanka iyo dalka aniga naftayda ay hurande gaajoon ma yeewaan uuraya naftayda waanu dhimanaya dhagax xasaas Allah xasaas الدولة ninka uu soo halgamay ee uu soo dhintay ee maanta afar looda bolol laha laga qaadayo hadana ee berrina nin madaxa la siinayo cadaalad darrada ka taagan go'aanka Soomaaliland hal arko waa arkaysaa go'aanku lagu hortaagay ciidanka xoojinta la soo gudbigayo wax weeye Allahu akbar Allahu akbar sidoo kale xildhibaano ka tirsan guurtida Soomaaliland ayaa iyagoo dhacdadan si weyn uga hadlay dawladda waxaan u soo jeedin lahaa daanu qolihii nabadda nahay in lagu soo dabaalo nabadda iyo halka ka dhacay ugu dambeyntiina siyaasiga Ali Ahmed Kooshin ayaa arinkaasi cambaarayay Berbera waxaan ku bariisanay tiyo koonfurteeda uu dagaal ka socdo xabadu ay xarad beeshay intaasi markii ay dhagaha iyagu maqleen waxaanu garanay inaanu kolleyto aniga iyo rag kalaba inaanu gaadho
meesha ay ka socoto xabaddu ka dhacayso dabeed waxaanu gaadhnay gallimaad buleysku ku sameeyeen meeluu nin deganaa mujaahid oo Faysal Axmed Aadan la yiraahdo xere jaajuurna uu ka samaysto jaajuur uu iibinayo ku sameeyo ciyaalkiisa deba saari fugadeeyo meherada hayd muddo badan shaqeynayso la yaqaanay oo shacabka magaalada ah maan arag ruuxaantii anagu ninkii xabada lagu ridaayay laakiin dadkii jaarka dumarkii iyo caruurtii oo kacdoon iyo mudaharaad wada oo tuban wadooyinka taayirra soo gurtay inay wadada ku gubaan raba dhagxaan ku ururiyay ayaanu gaadhnay waanu la hadalnay dadkii Yaasiin Jaamac Ali